عوينا عشبي الدجاج كدول الدجاج عشبي شريحة مقدمة حقيقيا كرتون مدوري ولا بسكرة دارها ولا بسكرة حقيقيا النبو وحنا مسنا خبيث جارسلنا ولا الله نبوا ولا دلنا صوت بان لو قاري انغ يا جارسو دغمد جناحسنيه تلقوا اسكود ايغو بد قبيله اورمان اون عيد خصبي اييدان اورمان حرمتين نقدر انك ميل لك متين ولا لاين حتى اورمان نقدر ما سيدتك مليون اورمان نغو سو هوغامين انك دولته taa waxa ka qabato idid garxweyn 80 milyan lagu soo hogaamiyaan oo dadka iyaga la xasuuqo oo faraxna wada Soomaaliya oo iskuuladii baabaan oo wax barashadii baabado oo caafimaadku baaboo oo nala kumaado raali ka badiyay adeer waa baasada iidow dhalinyarada dadkii walaalaheen ahaa ee Soomaalida loo dilay ee laga kala keenay degmada Tulluguurad qabilayadeeda iyo Baabili waxa halkan yaala 3 qof oo meeyda 7 waxa laga keenay Tulli 7 waxa laga keenay Baabili dhammaan intii ehelkii ay ka baxeen samiriyay baan leeyahay inta wax kale looma dilin Soomaalinima loo dilay magaca lagu dilay waxaan leeyahay in xukuumadda madaxweynaha cusub ee Mustafa Maxamuud Umar waxaan leeyahay dadkan waa dadkaagii dadkan la leeyahay waa dadkaagii dadkan dirada lagu leeyahay waa Soomaali wax ay dhimeen ma jirto hadii dhibaatada inagu aan wada dhinaceena in la qabto hadii ay wadaan in la qabto ta kale waxaan ku darayaa iyadana cadiifada iyo xol looga baano inaan istajino oo keenageena dhaxyaalana ilaalino oo nabadda aan ka shaqeyno inagoo dhimanayna haddana nabadda aan ka shaqeyno dawladdu inta ay ka arkayso hadii federaalka iyo hadii kala tayba waxaan iyadana maartay kalo aad wax looga xumaadaa waa sidoo odagii hore u soo dhigay ra'iisul wasaaraha Itoobiya kama goonin labadan deegaan nabad ka dhaliyo eewal waxay eedayn jireen liyuubana laayay hebel madaxweynihii hore tagay dhibaatada wada shalayto madaxweynaha cusub oo xilka la wareegay sababta ay dadku laayeen maxay tahay arrinta aad looga naxaway مدمرتما مقدلبا wax way hadalkii aan ku dhaga ahaa ee uu ra'iisul wasaaruhu yiri in dhamado macnaheedu tahay isku tagno waxaan leeyahay waxa loo bedelay aan iska tarno ninkan maskumaadno maalin kasta mid Soomaali baa la keenay rasuulka faraalkan maalin kasta degmooyinka Soomaalida dhibaato ku socota waxaan leeyahay dhaawac la keenay Allah u naxariiso innagana aan isku tashano dawladuna aan ka warsugno leeyahay go'aan degdeg ah بسم الله مرة ورا واحد تصدر يا بطل الصومالي أنا محمد أنا ما تقدر مادان تجمعين تلقولن بابلي هي درينا تقطع جنسيد بلا جنسيد ما يصير سفين بيوادان رئيس الوزراء أبي markii uu ra'iisul wasaaraha qabtay anagu nagu soo horeeyay baarlamaanku uu qaaday wuu beeniyay waxa alla wuxuu Soomaaliya qabtay ma jirto istisfaynu korka ka eeganayaan waragnaa anagu ma dawladda federaalku military bayna soo tudhigtay military anaga intuu gacmaha naga duubo ayuu noo iyaga noo dhuga xidhaa ayuu xabada nagu qubayu ku iyaga laaya way iska caddahay marag madow weeye meel kasta oo ay joogaan wuxuu Ilaahay ugu ogyahay ay oramadu degan tahay inay soo dhulbalaansi ay dejiyaan oramada military baa la fadhiisinaya si gaar waayaan caruurtayada xoolaha la joogta imka raggan loobay la joogeen ragana soo gumaaday xoolo jirbay ahaayeen shacab bay ahaayeen dagaal kumay jirin marka Itoobiya waxay wadaa istisfayn Soomaaliyeed istisfayn bano genocide bano aragnaa ra'iisul wasaaruhu haddii xadkayga maqlayo haddii Itoobiya ra'iisul wasaaruhu yahayna ha sheego haddii oramadii waxa uu dagaalamay oo uu yahayna waxa weeyaan ha cadaysto aad bad ma halkan ma dumarka u yeerdaaye yarba dirista dadkiina la wareysanay bilis mid baan idin sheegay inagu siyaasad kama hadlayno badfaanteen waxa weeyaan wariyaha wuxuu idin weydiiyey su'aasha ama dhabtay noo la geystay iyo meedka halkay noo yaalla keliya kana ka hadlayna su'aasha wariyaha uu idin weydiiyey si fiican uga jawaaba waxa gelina bad kale haabis waka
waxaana ka suuqaysaa soo doonaysa waa oramada weeyaan oramada darab iyo gaashaan bay haysataa baa la siiyaa caawimaad bay haysataa cunto ayay nooc baa soo geeyaan waxaa looga dhigaa barkimo waana maatiday xasuuqayaan dumarka uur kale uurkii ka soo ridayaan ilmaha waxaan ku yidhi adhiga ilaalinaya adhigay ku dilaan inanka yar waxaan ku dhalinyarka ee xoolaha maalaya intii u tagaan ay caanaha ka cabaan ay garbadu ku dilaan ayay isagoo garbaduubka u xidhan bay dilaan oo way toogtaan waxaan ka codsanaynaa abiyu axmed nabadaa sugayaa buu yidhi xaq baan ku shaqaynayaa buu yidhi sidaan ka filayna muuna yeelin xaqna kuma shaqaynayo xaqdarro ayaan u aragnaa sidaas oo kale maadaama nala xaqirayo annagu soomaali haddaan nahay maanta waxa weeyaan dhakhtarka arrin faraalka waxa buuxaayey waa mayd soomaaliyeed weeyaan mayd soomaaliyeed baa ka buuxa soomaali meel ay joogtaba oramaana xasuuqaysaa waxaan ku yidhi beesha geli koomba ha u badnaatay oramaana xasuuqaysaa sida naloo xasuuqayo in maaragtay dadweynaha iyo dawladuhu ay noo arkaan oo nalaga gargaaro oo nalaga caawiyo oo nalaga soo gaadho ayaan u baahannahay maadaama oo shacab aan nahay annagu markaan isnidhi hadska celisin ee raggayagii dhiidhiyeen ee waxaan ku dhahay dhaqaaqeenna federaal baa naloo soo diray federaalkii raggii hubkii buu ka ururiyey raggayagii markuu ka ururiyey hubkii uu ka qaatay ayuu nabad baan sugayaaye faraha ka qaado oo wax rasaasa haridina hubkii oo nalaga urursaday ayay haddana nalagu soo fasaxo inta hubkii annaga nalaga ururiyey oramada loo geeyey oramada intay noo timid bay hubkayagii nagu laysay markay hubkayagii nagu laysay ee nagu dishay waxa yaala mayd dumar baa hadda yaala referaalka mayd rag baa yaala waxaan ku yidhi maati baa taala adhi jirkii baa yaala beero qodaalkii baa yaala soo waxaad gartay maa oramo inaan nalaga soo gaadho ayaan rabnaa anagu dadka waxaan ku yidhi oramada ah ee laba simakaaraha ee oramada ah ee laakiin qabiilada kale sheeganaya haddana oramaha haddana soomaali isku sheegaya waxa weeyaan laba simakaaro oo midhan inaan la qabto ayaan u baahannahay dhacdadan haddii aan ka hadlo annagu waxaan u baahannahay dawladaha xaqiyaanka ah ee waxaan ku yidhi garsoorayaasha ah ee sida xaqaa ku shaqaynaya arrintaa inay iyaga u taallaaye wax ka qabtaan baan u baahannahay arrintaa inay wax ka qabtaan baan u baahannahay wasalaamu waa tahay odayaal way ka hadleen odayaal way sugayaan gabdhaha ka yarabta Soomaali weyn iyo shacabka meel kasta oo jooga waxaan ka codsanaynaa dad islaam oo dhibaataysan baan nahay dad iyo dibadda joogta islaamnimo inay nagu gargaartaan oramada la dilaysa aad naga gabataan annaga haddaan nahay beesha geli koombo waxaana lagu yidhi waddanku waa nabad hubkayaga baan soo xaraynay annagu kursi ma rabno laakiin muwaadin waxaan nahay beero qoolata ah oo xoogsata masaakiintii beeraha qodanaysa ayaa shalaytooda loogu dilo oo majalkusa meydkoogii baa la gubay maatidii xoolaha ilaashanaysay baa la gubay hooyadii uurka lahayd ayaa geri baa tahay ama ilmo geriyaad sidaa darteed mindi caloosha looga soo degay ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka oo dhan laa ilaaha illa allah muxamad ka dhacayso waxaan walaalayaal inaga codsanaynaa inaad na soo gargaartaan oo na soo cawsan oo na soo gaadhaan oo dhibaatada na haysa ninkii wax loo tiri waayo noo soo ducaysaan يرجعوا ولا لا حبلا سيدنا ولا لين إركيني هذا يكاد ما يرجعوا ده
حدثت